kusoo dhawaada barnaamijkeeni nuxurka buugaagta. maanta halkan waxaan ku soo qaadan doonaa buug la yidhaahdo 12 xeerar nolosha oo uu qoray aqoon-yahan Kanadiyaan oo magaciisa la yidhaahdo Jordan Peterson, kaasoo dhakhtar cilmi nafsi ah isla markaana cilmi nafsiga ka dhiga jaamacadda Toronto. waxaanu buugani noqday kii ugu iibka badnaa Amazon 2019. waxaanu halkan ku soo bandhigaynaa haddaba qodobo ka mid ah xeerarka uu ku xusay buuggiisa, kuwaasoo aan u aragnay inay yihiin kuwo muhiim ah. qodobka koowaad, ula dhaqan naftaada inaad tahay mas-uuliyad qaadaha caawinteeda. haddaba aadamuhu waa kuwo si fiican wax u qabta marka ay dareemaan inay saaran tahay mas-uuliyadda caawintu. tusaale ahaan ka soo qaad inuu xanuustay qof aad dareemayso inay ku saaran tahay caawintiisu. waxa aad si qoto dheer ula socotaa xaaladiisa, sida inaad weydiiso daawadii ma cuntay, qaado talooyinka dhakhtarka, halka marka ay taada timaado aad mararka qaar aanad cuninba dawadii ama aad iska dhigatirto talooyinka dhakhtarka. haddaba sirta qodobka ku jirtaa waxa ay tahay inaad naftaada u aragto inay ku saaran tahay mas-uuliyadda caawinteedu. qodobka labaad, saaxiib ka dhigo dadka aad jeceshahay inay ku wanaagsanaadaan. dadku waxay ku saaxiibaan marxaladaha nolosha ay iskaga midka yihiin, sida goobaha waxbarashada, goobaha shaqada iyo goobaha cayaaraha. haddaba cidda ku jirta seerahaaga saaxiibtinimo miyay tahay cid kugu riixaysa dhinaca wanaagga? waa kuma saaxiibka aad ku dareento dhiirigelin marka aad la joogto asxaabtaada? haddaba haddaad ka weydo labadan shuruudood, waxaa waajib kugu ah inaad si toosa dib ugu samayso cidda aad la socoto. qodobka saddexaad, ha barbardhigin noloshaada cid maanta joogtay ee barbardhig ciddii ay shalay ahayd. tusaale ahaan, haddaad tahay qof maanta waayuhu hayaan, ha u eegin naftaada cidda ay maanta waayuhu wanaajiyeen, ee u eeg halkii ay shalay joogtay si aad u fahanto inaad kasbatay waayo aragnimo aanad shalay haysanin. qodobka afraad, gurigaaga hagaaji ka hor inta aanad dhaliilin adduunka. ujeeddada qodobkani waxay tahay inaad adigu marka hore iska ilaaliso wax kasta oo aad adigu u aragto inay yihiin wax xun ka hor inta aanad si guud u dhaliilin. tusaale ahaan, waa inaad adigu iska ilaalisaa qabyaaladda ka hor inta aanad bulshada qabyaaladda ku canaanan. qodobka shanaad, ha u oggolaan carruurtaada wixii aad ku nici lahayd. qodobkani waxa uu taabanayaa xidhiidhka u dhexeeya waalidka iyo carruurta. waxa kugu habboon waalid ahaan inaad ilmahaaga aad u barbaariso mid la jaan qaadi kara yar iyo weyn, si ku habboon akhlaaqda caamka ah. taasina waxay horseedaysaa in qofkaaga yari kasbado bulshada si togan, adiguna aad isla markaa ka hesho milgo iyo ciso iyo maamuus. qodobka lixaad, u qaado qofka aad dhegaysanayso inuu garanayo wax aanad garanayn. taa macnaheedu maaha inaad qofka siinayso ixtiraam xad-dhaaf ah, ee waa inaad daboolayso baahidaada aqooneed, islamarkaana aad kasbanayso xog iyo macluumaad cusub oo dhinacuun ka anfici doona nolosha. qodobka toddobaad, runta sheeg ama ugu yaraan been ha sheegin. qodobkani waxa uu si qoto dheer u taabanayaa shakhsiyad xumada laga dhaxlo beenta. marka hore waxa uu beenaaluhu meel uga dhacaa naftiisa, isagoo qulqulatayn ku sameeya xaqiiqada shayga. taasina waxay dhaxal siisaa laba qodob: inaanay cidina ku kalsoonaan iyo inuu yeesho kalsooni darro uu ka qaado xaqiiqo kasta oo aanu isagu markaa hore u ogeyn oo u maqlo. qodobka sideedaad, hadalkaaga ku koobnow. sida caadigaa waxaad aragtaa dad waxa ay sheegayaan si wanaagsan u soo bandhigaya, ayaga oo aan marnaba dacal uga bixin. taasi waxay qofka siisaa inaanu hadalku ka kala lumin, islamarkaana uu si fiican xogta uu hayo u soo gudbiyo, loona fahmo si fudud. haddaba daawadayaal, sidii aan hore u soo carrabaabay, buugani wuxuu ka kooban yahay 12 qodob, waxaana ka gaadhay 8 qodob oo aan u arkay inay yihiin kuwo muhiima. waxaana rajeynaya inaad ka faa'iidi doontaan, iskuna daydaan inaad akhridaan buugga haddii aad wakhti u heshaan.